بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين walaalaha halka kan nagala socdo CF bulsho ku soo dhawaada muuqaalkani wuxuu ku saabsan yahay mid ka mid ah arrimaha ruuxiga ah ee khatarta leh kaasoo walaalo badan aad iyo aad u rafaadiyey noloshana ciriiri ka geliyey calaamadaha kan ayaynu ka warrami doonaa ee uu leeyahay xanuunkaasi ruuxiga ee masiibada ah loona yaqaano xasadku asaga kala fiicane midka ugu daran way midka ugu daran ugu halisesan way ay ku hayaan xasadka dadka xaasidiinta xariifka ku ah allana quraankiisa wuxuu ku yiri wa min sharri xaasidin idha hasad la hawla wala quwwata illa billah ولذلك waxa la sheegaa kufriga iyo xasadka walaalo way iska dhowyi dadka qaarkood xataa gaalnimo waxa ku xambaartay waa xasadnimo inay wax dilaan mararka qaarkood xasadnimo ay arintaasi ka soo burqanaysa marka calaamadahan iyo tusaalayaashan xasad dhaafi way xasadka hadduu iska daba yimaado aad u daran waliba xasad aad u daran calaamadaha lagu garto way maahan xasad xataa normal mid caadiya mid hal qof kaaga yimid mid maaha waa mid daran way midkan oo dhibaato weyn jirkaada ku haya kow calaamadihiisa waxaa ka mid ah ka fogaansho dadeed adigu kaliya maaha xitaa dadku inay kala kaa fogaadaan ama ehelka asxaabta dadka taqaan dadkaas ku agdhowdeen oo maanta ku inkiraya aragtay ama adigu aad inkiraysid dadkii gooni buu uga soo gooni goosad buu qofkii noqday qof bulshaawi haddaad arki jirtay dadka ku dhex jiray dadka caadiga ahaa wax walba dadka la sheergarayn jiray aad aragtid inuu keligii noqday maanta uu dhibsanayo dadgalkaas keligii uu meel ku go-ay xasad aad iyo aad iyo aad u daran baxay calaamada labaad inuu isdareensiinayo oohin yani inuu ooyayo ma ahan yani ma oydaa buu marka qaarkood ku fakeraya niyuma iska cabaadid wabaa iska oydaa ama caadi buu ooyinba marka la oysa maxaa la oysa la yiraahdana ma garan karo dareenka oohinta ilinta oo qofku xeeseynayo sabab la'aan waxaan haddii waxyaalaha cudur oo dhakhtareed ay jiraan oo la sifeeyo oo la ogaaday daawo okay laana xagga waa la isku wadaya laakiin tan sabab ma laha qof iska ooyaya way ama oohinba inuu jeclaystaaba ama iska oydaaba raba taasna waa mid tusaysa xasad daran oo qofka hayo subxaanallah laa xawla walaa quwwata illaa billah waxaa calaamada saddexaad ah in qofkaani ciriiri sabab keenta ilaa hadda aan la fasirin ah haysato xagga irsaaqada xagga caafimaadka xagga nolosha xagga wax kalaba rabbiga waa ku karaameeyey jir ahaan buu ku karaameeyey nolol ahaan buu ku karaameeyey irsaaqad ahaan buu ku karaameeyey irsaaqada iyo wax walba mid ilaahay wax walba kugu deeqa marka waxaa ilaahay kugu deeqay dada usoo kaba gashaday inay kaa xastaan oo is og yihiin inay xaasidin yihiin arrintaasna ay ku caddahay kadibna ay arrintaani kugu sameynayaan marka waa ciriiri aad iyo aad u daran wey ciriiri aad iyo aad u daran sabab la-aana sabab ma jirto wey calaamada afraad waxaa weye qofka inuusan muuqaalkiisa ku dadaalin qofkii nadaaflaha gabadhii nadaafada badnaa wiilkii nadaafada badnaa xaragada badnaa maanta ma laha dharkiisa kama taxadarayo bil ba waxaa laga yaabaa ama 10 beri inuu hal shay qabo ku duuduuma asaga dhan baa wasaq ma qubaysanayo warkaala qubaysan qofkii qubaysan jiray maalin kasta malahan hadda nadaafad xumaa ku dhacday iskuma dadaalayaba xasad aad iyo aad u daran baa hayo calaamada kale waxaa weeye ee shanaad inuu qofkan dareemo cadowtinimo qof kastoo la hadlay inuu la dagaalo jecel colaadsi wax la yiraahdo samaysanaya cadow qof nabadgelyo ma aha ehelkiisii asxaabtiisii dadkii dhan inuu laayuu rabaa inay isku dhacaan buu rabaa
inay kala tagaan buu rabaa, inay iskhilaafaan buu rabaa. waa qof cadaawad samaysanaya ama cadowtinimo ku dhaqmaya. qofkii sidaas waa isbedelasaa ma ahaan jirin. xasad aad iyo aada u daran bahaya. calaamada lixaad, daal tiro badan inuu qofku dareemo, fikirkiisii uu waayo, wacyigiisii iskontaroolkiisii uu waayo. waa daalan yahay mar walba, waa caajisan yahay mar walba. daal wuxuu qabtana garan maysid, kaanamaa wuxuu u eg yahay qof maanta o dhan shaqaynay, saacadna aan nasan, wamaca daalika waxna ma qaban maanta. sidaas uuna haddana u egyahay. waxaa haysa xasad aada u daran oo xun. qofkan tasarufkiisii habdhaqankiisii waa isbedelay. waxaanu samayn waa ka booday, kanuu samayn, waxaa isbaraanbaraya samayskiisi, ficiladiisi waa iska hor imaanaya. shala waxaanu samaynaya berri waa diidaya, waa isaga dhanba waa isbaraanbaraya. meel loo qaaday lama yaqaan, meel loo fasiray lama yaqaan. ficiladiisaas waxaa haya marka waa xasad. hadii la iska daaweeyo unbaa markaas shaqada dadka u taalla ah. xasadka iyo shartiisana jirkiisa uu ka saaro. qofka kan waa cabaadaya, mararka qaarkood afku kala qabanaya, iska hamaansanaya, hamaansi bilaa yani sabab ah, xad dhaaf ah. xitaa isagoo hurduu hamaansanaya qofka kan tuu afka kala qaadaya. waxay taa ka turjumaysaa qofka kan inuu rukuntay calaamadaha ay tusayaan xasad aada u daran. dadka qaar waxaa laga yaabaa calaamadahaas iyo kuwa ka daran intay arkaan inay fahmi waayaan ilaaya hadda waxa ay yihiin, balse ay xaqiiqadu tahay in qofka kan uu hayo xasad aada iyo aada u daran oo noloshiisa saameeyey, oo noloshiisa ragaadiyey, oo noloshiisa ibtileeyey, oo dadkii ku diray. qof walba qofkan wuxuu aaminayaa inuu shar la doonayo. dadka heshiis lama aha. wuxuu qofkiis aaminaya inta kalsooni xumo ku dhacdo, oo dadkii wuxuu aaminayaa inay asaga un kasoo horjeedaanba mar walba, dadkiisa ama lidkiisa ka shaqeynaya. calaamadahan dabcan kuwa sixir la wadaaga waa jiraan, kuwa isha iyo balaayada qumayada la wadaagta waa jiraan, laakiin intaan xasad baa u badan. inta badan xasad ayaa u badan. marka iska daawee haddii calaamadahaas qaar ka mid ah ama inta badan baa isku aragtayba. waxaan isku dawaaysa waa aayaadka ilaahay, waa musxafka iyo qur-aanka iyo ducooyinka guriga ku yaala. akhriso nacuudu bikalimaati illaahi taamaat min shari maa khalaq. maxay kaa jaraysaa? suuratu nnaas, suuratu lfalaq, suuratu qul huwa alle, suuratu qul yaa alkaafiruun, suuratu ida zulzilad, suuratu lbaqara, suuratu lburuuj. suuradahaas, aayatulkursi, aamana rasuul iyo laa yukalifu llahu nafsan, suuratu lfaatixa, salliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam. waxaasoo dhan ayaa ka takhalusaya oo saaraya insha allah. xasadku wuxuu cunayaa jirkaada haddaad isku fiirsatid, noloshaadu cunaya, wuu baabi-inayaa fikirkaada iyo nololeed. waxbarashana ma baranaysid, xasuustii waa kaa tegaysaa, adiga dhan qof cudurlow aada noqonaysaayo xanuun mar walba meesha la soo taagan. haddee baahi badan iyo bugto badan soomaalida waxay dhan waa laisku nacaa. marka dambe dadku say meel kale kuula tacaalaya, hadba dhaktar lagu keliya waaba kugu daalayaanba, iyadoo haddana halkaas aysan ahayn dhakhtarkii ee ahayd aayaadka ilaahay lagu bilaabo. kol kastoo nimcadu bini-aadanku faaftana xasadnimadaa badanaysa. marka qof aayaadka ilaahay iyo ducooyinka haysta u malayn mayo xasad inuu ka cabsanayo. fallaahu khayrun xaafida wa huwa arxamu araaximiin. hase yeeshee dadkeena inta badan waa aragnay oo nimcadii lagu xasday ku mashquuleen, aayaadka ilahayna waa ka mashquuleen. sidaa darteed bay xasadku ugu soo gabanaya. taasi haryahameen cabaadayaan. waxaa dad arkaysaa way isxasteen. qof walba xanuun baa hadda aayaadka ilahay haddii lagu akriyo jirkiisa dhan waa jirarcoonaa, waxbaa taabanay. jirarcadu maahan in uu aayaadkan la falgelayo oo fahamsan yahayo yacni uu ku cibro qaadanayo maaha. waa xanuun waxa keenaya, waa xanuun. dadkiina allahu aclam, intii maaragtay ilaahay u naxariista mooyaane waxay isku baabi'iyeen masaa'ib. iska daa kuwan qacanta isku dilaya, bimacnaa islaynaya oo dagaalamaya. waxaa ka daran kuwa sida hoose isu laynaya. xasadka, isha, sixirka, balaayada, cuqdal, waxaasoo dhan cadowtinimadaas. marka naftiina
uga sifeeya aayaadka ilaahay, uga sifeeya usoo noqda aayaadka ilaahay, wax dhaaman la waaye usoo noqda. halkan waxaan u joogno way oo si ay bulshada aanu aasaasnay way oo mar walba idiin soo horfadhina way usoo noqda aayaadka ilaahay. nolol degan haddaa rabtaan, isaaqad haddaa rabtaan, guur haddaa rabtaan, caruur haddaa rabtaan, farxad haddaa rabtaan, wax oo dhan ayaga ka helaysaa. meeshaa kale waa ku daalaysaan, waqtiga waa idinka cunay, wax faa'iida ilaa hadda idiin soo noqdayna ma jirto. kuwa laakiin ku khasaarimaysaan. ku akhriya insha allahu tacaala, isku akhriya, iscilaajiya, ruqyada isa saara, dadkaad u kaalmaysan kartaan us kaalmaysta, iska saara waxaa noloshiina cudada iyo xanaaqa iyo dulqaad la-aanta idin keenaya. marka horena iska ahayda normal, iska caadiya dabiiciya. waa mahadsantiin. muuqaalka kale intaan ku kulmi doono muuqaaladana soo socda kan halkaas aynoo joogo. bilaahi التوفيق.